waqti aan fogeyn baa nin sheekh iyo warramay 3 nin iyagoo abaa gardarro lagu qabtay dabeetana xabsiyada adag xabsi ka mid ah lagu xidhay wuxuu yidhi qur-aan baanu akhrinay tiro badan marka nin ka mid a nimankii baa wuxuu yidhi waryaane qur-aanka haddaan akhrino waan bixi karaynaa jeelkaasi may raacaysaa waan yara shakiyey buu yidhi waxaan nidhi adigu bal tijaabi qur-aan badan intuu akhriyun buu iska baxay buu yidhi albaabkaa laga furay kii labaad baa yidhi buu yidhi waar nisbe ku baxyeennana waa akhrinaynaa qur-aan badan oo kale aanu akhrinay buu yidhi dabeetana kii labaadna uu iska tegay buu yidhi uu iska baxay ninka ii warramaya waa ka saddexaad marka anigu waan yara shakeeyayaa buu yidhi kolba waxaa isleeyahy war nimankii meeshan adag kugu xidhay hadday ku qabtaan waa ku garaacayaan haddane waasna markii dambe aan sidhi buu yidhi war labadii kaa horreeyeyba ku baxee maadadna tijaabisi waan waday buu yidhi wado ana albaabkan ka soo boday buu waa iska soo baxa oo adigu saad u baxdaan weydiiyey kuwa kale maad arkaynin albaabka markaan mirayaa mid igu yidhi buu yidhi meed sala tegaysaa markaasaan ku yidhi buu yidhi haa dabeetana uu ii baneeyey buu yidhi oo iska dhaafa ilaahay subxaana wa tacaala xuskiisa haddaad badsato nabadgelye iyada kugu filan laakiin inta badan dadku way hilmaamaan sida awgeed ayaa ilaahay wuxuu tilmaamay kuwa dagaalada gelaya mujaahidiinta ah war dagaalamo sugma baa ilaahay yidhi laakiin ilaahay xuskiisa badsada ilaahay wuxuu leeya yaa ayuha aladiina aamanuu idaa laqiitum fi'atan fahbutuu wadkuruu llaha kaiira lacalakum tuflixuun war kuwa iimaanka laga helayo haddaad la kulantaan fi'a koox haddaa ishaleeshaan horta ha cararinee sugma baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala gaala haddaad la kulantaan oo dagaal ay tahay sugmo ha cararina maxay kala sameeya baa ilaahay yidhi fadkuruu llaha kaiira lacalakum tuflixuun ilaahay xuskiisana badsada waxay mudan tihiin inay guulaysataan baa ilaahay tilmaamaya subxaana wa tacaala ayuha alaxiba ilaahay xuskiisa deganaashiya naxariis baa lagu helaa siduu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu yihi duul meel ma fadhiistaan iyagoo ilaahay xusaya ilaa iyo malaa'igtaa isku weegaarta oo ilaahay naxariistiisaa daboosha oo xasillooni baa ilaahay ku soo dejiya oo rabbi baa kuwa agtiisa joogee malaa'igtaa uga warrama waxaas oo nicmo ah maxaa lagu helaya marka xuska ilaahay dhab inaga yihi aynu si dhaba ilaahay u xusayno subxaana wa tacaala cagsigeeda wuxuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam duul meel ma fadhiistaan iyagoona ilaahay xusaynin ilaa iyo nuqsaan bay ku noqotaa ilaa kaana calayhim tiradu waa naqs walan yatirakum acmaalakum yani waa nuqsaan bay ku noqotaa qof ma jira buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam rajulun mashaa طariiqan qof wado maray waan ilaahay xusin ilaa kaana calayhi tira wamaa min rajulin aawa ilaa furaashihi falam yadkur illah ilaa kaana calayhi tira nabigu wuxuu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam qof fadhiistay iyo qof socoto ah iyo qof jiifsanaya oo aan ilaahay xusini hadduu jiro uun nuqsaan bay ku tahay buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ajarkaa ka nuqsaami ilaalintii iyo naxariistii iyo wixii la helayayba ka nuqsaami wixii wanaagee nusuustu ay tilmaamtay oo dhanba ka nuqsaamaya sida awgeed maalinta qiyaamo baa la yidhi meel jalsa dadkii soo fadhiistay aan nebigana ku sallin ilaahayna xusinin ilaa kaana calayhim tira fain shaaa cadabahum wain shaaa gafara lahum maa min qowmin yaquumuuna min majlisin laa yadkuruuna fiih ilaa qaamuu can mithli jiifati ximaar wa kaana calayhim xasra dul meel inta isugu yimaadaan warka loon akhriyan iyagoo aanay ilaahayba sheegin ilaa iyo sidii bakti dameer duulka dulkacay bay noqdaan baa la tilmaamay can mithli jiifati ximaar ayuha alaxiba saacad kastoo dunidayna soo marto inaan ilaahay xusini khasaare aakhirayna u tahiyo mid adduunyaba cala alaqal wuxuu nabigu inoo tilmaamay calayhi salaatu wasalaam haddii majliska aynu fadhino waxoogaa laqwiyi bayna ka dhacdhacaan marka u dambaysa aynu kacayno haddaynu nidhaahno subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha illaa anta astakfiruka waatuubu ilayk ilaahay wixii majliskaa dembi inaga dhacay waa inoo dhaafaya
على الأقل markaynu sii kacaynuun haddaynu ilaahay xusno wixii aynu qasnay ee dhib aynaga dhacay waa laynaga dhaafaya ayaa laxiba markaa ilaahay xuskiisa adduunkana waa lagu liibaanaa aakhirana waa lagu liibaanaa